Somali Rochester Media. shirkadda caalamiga ee adeega bulshada Rimjoy Transportation Service dhaaxaad sugaysay adeeg raaxa leh oo hufan isla markaana ka haqabtira dhinaca gaadiidka dadweynaha baahiyaha gaarka qaba haddaba ku guuleyso in aad ka mid noqoto macaamiisha shirkadda caalamiga ee Rimjoy Transportation Service ee magaalada Rochester ee gobolka Minnesota. shirkadda Rimjoy waa shirkaddii ugu horeysay oo Soomaaliyeed oo ka hirgelisa adeega gaadiidka dadweynaha baahiyaha gaarka qaba. waxay ku wargelinaysaa dhalinyarada Soomaaliyeed in ay u hayso isla markaana ay ka bannaan yihiin fursado shaqo oo dhinaca darawalnimada ah. haddaba fursaddu waa xadidan tahay ee ka gaar wixii faahfaahin ah kala xiriir shaashada Somali Register Media oo aad ka dheehan kartaan cinwaanka shirkadda Rimjoy. waatan maamulaha sare ee shirkadda Rimjoy Saciida Xasan Cumar oo faahfaahinaysa. Bismillahir Rahmanir Rahim. Somali Rochester Media waa ku mahadsantihiin booqashaalkan soo booqateen. Rimjoy Special Transportation businesska waxay ku jirtaa 2010 aan bilawnay ilaa iyo hadda 2021 aan lagu jiraa hadda, so 11 years aan ku jirnaa businesskan. mideeda kalena waxaan qabanaa transportation oo aan dadka oo kaalmada u baahan aan kaalmeynaa. baabuurta lagu qaadaa, waa la geeyaa appointmentigooda, waa laga soo qaadaa. laakiin Soomaalida waxaysan ogeyn meesha ku jiro oo waiver la dhahayo. waiverka waxaa waaye albaabo kale oo medicalka ahaynba waay aan qaadnaa, oo dukaanka la geenayo, maxaa la dhahaa masaajidka la geenayo, oo suuqa la geenayo, waxyaabahaas oo dhan aan u sameynaa. laakiin Soomaalida badankood hal iyo labo og, badankood ma wada oga dadka oo adeegyaasha oo qaaska u baahan ay ka mid yihiin. waxaan la weydiinayaa maxaa la dhahaa social workerka inay certificate soo siiso waay. midda kale aan qabano waxaa waaye communitydeena isku daynaa inaan shaqaaleysiino, oo aan number 1 horta shaqaalo haddii loo baahan yahay communityda inaan dhex galno oon dhahno shaqaa noo banaan ee imaada ka shaqeysta company baabuurta wata, xataa kuwa oo contract ahaa jiraan haddii ay rabaan oo la siinayo. since COVID-19 uu dhacay shaqaalihii oo dhan way fadhiisteen. markay fadhiisteen hadda waxaan isku dayoonaa inaan soo celino oo maxaa la dhahaa la shaqaaleysiiyo qofkii rabto inay company-ga uu u furan yahay oo Soomaali ah iyo ajnabi labadaba waa qaadanaa. inuu driver license clean qabo waaye qofka, inuu maxaa la dhahaa background oo clean uu qabo waaye. labadaas walxaatood hadduu qabo driver wuu noqon karaa, waa la siinayaa. waxaan geynaa Mankato, waxaan geynaa Winona, Austin, Minneapolis, oo meel kasto, Faribault waa tagnaa, waan geynaa Awatana waa tagnaa. meel intiina laga soo wacayo insurance company-yaasha aan qabno haddii eebana soo wacaan ee dhahaan qofkan ma wadi kartaa, waa wadiinaa, oo aan driverna u hayno markaas waa wadiinaa. Rimjoy waxaa waaye shirkadda keliya oo Rochester more than 10 years ka shaqeynaysay oo Soomaali leedahay. taas waxaa usii dheer Rochester waxaa waaye hometown-keena, community-geena waaye. dadkaan serve gareyno dhan waxaa waaye dadaan naqaano, ama ha ahaado ajnabi kale oo Soomaali ahaan ama Soomaali ha ahaadaan. labadaba waxaa waaye dad oo servicekeena u baahan, annagana aan isbaranay oo si fiican aan u serve gareyno oo shaqadan u baahan. midda usii dheer intaas waxaa waaye Rimjoy especially the last labadii sano haddana soo dhaaftay 2019 2020 2021 aan hadda ku jirnaa. saddexdaa sano waxaa experience weyn dareemoynaa in shaqaalihii u yaraanoy.
sababta keenaysana waxaa waaye of course horta covid waa soo wada marnay, dad badanaa guriga fadhiisteen, dad badanaa ma arkinoo shaqayn karin. hadda iyo dan midda ugu weyn aan u baahannahay waxaa waaye inta dhalinyaro ah oo shaqaysan karto, oo shaqo u baahan, oo income u baahan, waxaa idin leenahay nasoo wargeliya, noo imaada. regulation aa jiro, regulationkaan fiirinayna wixii qofkii u qalma shaqada oo kasoo bixi kara shuruudihii lagu xiray, annakana na lagu xiray, waa gacmihii waa idin soo dhaweyneynaa. marka dhalinyarada qofka any age, qof oo age limit aan siinayna ma jirto. qof walba oo shaqo u baahan maanta, hooyo, gabar yar, oday, habar, everybody, nin dhalinyaro ah, qof walbo haddaa time haysatid aad siin kartid ma arkino, ama afternoonka ama subaxdii waxay kuu noqotaba nasoo wargeliya, waa idin gacan qabaneynaa si aa idinkana member of Ramjoy u noqotiin. Ramjoy servicekii qabato ugu sii weyn waxaa waaye inaan dadka takhaatiirta geyno. appointment badanaa jiraan, dad oo waxaa jiraan consistent appointmentigooda tahay oo sitimaanka 3 jeer 4 jeer la arkaayo oo u baahan inay ka kala go-in. marka dadkaasaytood waa serve garaynaa maalin walba ee dhakhtar leeyihiin ama appointment leeyihiin. taasna waxaa sii dheer oo aan raacsiinaa badanaa dadka hadday rabaan ama loo approve gareeyey inay heli karaan shopping. qofkii oo haysto ma arkinoo coverage kaasaytood oo dowladdu soo ogolaatay waa u hagaajinaa, waa u appointment garaynaa. all those documents and everything is done. marka insha allah waxaan rajeynayaa dadkana fiirsanayaan inay na soo wargeliyaan. anybody oo Rochester deganaay waqtiyadan dhan wayna yaqaanaan, ama ha ahaadaan Soomaali ama ahaanin Soomaali. marka we are here to stay, we are here to serve the community. marka insha allah waxaan rajeynaynaa walaalayaasheen naga soo wardoona noo imaada. Rochester Media waa mahadsantihiin 100% intii aan invite gareyseen oo anoo imaateen, waa idinku mahad celineynaa. Somali Rochester Media. Subscribe.